halkan maanta annaga oo ah xildhibaanadii golaha deegaanka ee degmada Baki iyo maayir ku-xigeenkii degmada Baki waxaan halkan inaan ka cadeynaa ama ka sheegnay doonaynaa abaaraha ka jira Soomaaliland maanta oo markii hore dhinaca bariga ay maxaa ku soo horeysay in ay ka dhaceen maxaa dhinaca galbeedkana degmada Baki oo anagu xoogaal ka nahay aad buuxa oo goobo badan la soo marnay dadkii way lumeen xoolihii baa lumay abaar ballaaran baa ka dhacday dadkii wada isku guurguureen waxay gaareen buurihii bay haddana ka soo degayeen ma alla meel u socdaan meel ay u sii jeedaan lama yaqaano abaar ballaaran baa maxaa ka dhacay degmada Baki sidaa daraadeed waxaan doonaynaa in maxaan ku raadayay xukuumadda talada haysa ururada ka yahay Ahmed Maxamuud Siiraayo in ay bal horta indhahooda ku arkaan wafdi u soo diraan takale ee labaad ee maxaan ku raadayay kulli degmada waa degmo buuraleeya dadka buuraleeya biyo waa adeegan qulqulayaan nabaadka ma sii hayaan degmada abaartii hore tiyo ka soo qabsan bay tadamana ku dhacday xoolihii iibgalaya ma jiro wixii maxaa meelaha ay joogjoogeen oo tan iiblaantu ba ku dhacday dadkiina way taagan yihiin haba yaraatee wax cunaan ma hayaan ummadda waxa ku yadhaamaan dhulka qaarkii oo xagga bariga ay ku yadhaamaan waxa jirta dhinaca biyaha laakiin beed la cuno haba yaraatee ma jirto marka waxaan qayladhaan u diraynaa maxaan ku raadayay guddida abaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland xukuumadda Soomaaliland cid kasta oo maxaan ku raadayay waxa taakuleen ka ilaahay baa taakulanaya in ay dadka u soo gurmadaan yaa kan baaq dheer uga diray dalkan waxa ka jira dhibaato badan oo abaaraha waxaan ognahay in waliba saa ay tahay gobolka Awdal gobolada kale bariga ku soo qaxeen waxaan ognahay maanta degmada Baki laba marka loo qaybiyo barigeedu waxa dhibaato badan ka soo gaadhay dadkii soo qaxay galbeedkeedu wali may gaadhin dadkii soo qaxay laakiin bariga abaartii hore bariga degmadu waa dhulka horta xaalufka dhuxusha dhibaatooyinka ugu weyn ka dhaceen oo abaartii hore kama soo kaban haddana imika waxa soo gaadhay dhibaato dadkii qaxay dhibtoodii baa kulay soo gaadhay waxaan dhibtii dadkii maanta bariga degmada waxa yaala meydkii xoolaha dadkii abaarta soo qaxisay iyagoo aan nafaysanin bay dadkii kalena ku soo baxeen oo dhibaato soo gaadhay galbeed ku dhaamaa oo dhibaatadoodu meel la jiifana dhibaato kale may soo gaadhin laakiin qaybteeda bariga waxa soo gaadhay dhibaatada kale ee sayidku ah marka wax garawshana ma hayaan oo ciidamo oga inay xataa dhibaato soo gaadhay waxaan leenahay hadda u sheegaynaa xukuumadda laale bariga dhibaatooyinkii jira biyo la'aan baa ugu weyn biyo la'aan baa ka jirta Baki odhan mayna maanta laakiin abaartii hore oo inay dadku ka kabanin ayay abaartii dambe iyo dadkii is wataana dusha ka yimaadeen imika waxaad la yaabaysaa markaad midhid alxayd bariga oo dhan eegto meydkii bay isgaadhay xoolaha meydkii xoolaha isgaadhay gurmad bay u baahan tahay aragti waxay u baahan tahay caafimaadkii xoolaha oo loo amro waxa kaloo iyagu jira deegaanka oo sii baaba'aya oo gurmad u baahan haddii gurmad la waayana way kasii faray kasii baxaysaa oo dadkaasi geedkiina uu raacay oo dhimanaya waxa ka sii darantaa dhul beereedkii sida degmada Baki ruuqii meelihii beeraha ahayd iyaga laftooda dadkii waxay ulanayeen ka dhacay wax u beernaayeen waxa ku dhacay baraf dad dhan baa beerihii haysteen gubteen marka waxaan leenahay ma doonayno inaan oohinta ku darno ma aha inaan bariga ku jahwareerinayno waa xaqiiq dhaba kormeerkaan soo sameynay waxaan leenahay si xaqiiqa ha loogu fiirsado oo gurmad loo soo diro baa ku diraya gaar ahaan abaarta horta Allah bixiya ilaahay wataa inaga dulqaado Soomaaliland ka kala dardarraadana gobolka Awdal ku soo horeyso gobolada barigana ku dambayso horta ilaahay abaarta inaga dulqaado inta waxa ku daraya waxay Soomaaliland wali ka ku mashquulsan tahay inay beelo iyo xisbiyo ay tartan bulshada dhex dhigtay tiraado tartan baa iyo ololaha galgalaya ama bas iyadoo ololaha gaari la sii adroso in la yiraahdo waxa soo dhow aad u kala jiidasho dad la sameeyo oo rag waaweyn oo mas'uuliyiin maanta ay ku hawlayeen xisbiyadii inay maanta dadka abaaruhu ay sameeyeen cid walba og tahay ay maanta iyaguna cod ka doodoraan oo kala jiitaan taasi waxaan leeyahay mid nasiib darro ah waxaan ugu baaqayaa Soomaaliland abaarta Allah bixiyo ilaahay baan ka magan galnaa inuu naga qaado si degdeg ah ilaahay baan naxariistiisa la helaa
balse waxaan leeyahay kuwa afkay bannaan ugu hadlaya ee le waxbaa jira ama beelaan hebel maan raacnaa dhinaca ku haynaa inay ka xishoodaan hadallada maanta ay hawada marinayaan salaadiin hadday tahay siyaasiyiinta waxaan leeyahay dalkiina oo burbursanoo maanta abaari ay aanisay inaad maanta haddana hebel baa hadlay oo beel ku soo jeedaan iyo kii kala hadlay ay ceeb ku tahay